haybe cali gurey waa aabe Soomaaliyeed oo ku nool degmada Woodwood ee gobolka Cayn waxaanu ka hadlayaa gabadh uu dhalay oo lagu magacaabo Xaliime Haybe Cali Gurey oo deganeed waqooyiga magaalada Gaalkacyo xaafadda Garsoor ayaa waxa uu sheegayaa Haybe in ay muddo ku xidhan tahay saldhig ku yaala koonfurta magaalada Gaalkacyo ee uu ka arrimiyo maamulka Galmudug isagoona sheegay in gabadhaasi loo haysto lacaga aan lagu lahayn. Xaliime waxay haystay 6 carruur oo agoon oo iyadu u shaqaysan jirtay sida uu sheegay Haybe. sidoo kale waxa uu tilmaamayaa aabaha dhalay Xaliime in caafimaadkeedu aad u liito ayaa Haybe waxa uu ka codsanayaa mas'uuliyiinta waxgaradka labada maamul ee Puntland iyo Galmudug inay wax ka qabtaan xadhiga loo geystay gabadhiisa. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. waxaan codsanayaa oo ka codsanayaa maamulka Galmudug iyo maamulka Puntland iyo ururada samafalka gabadh ku afduuban maamulka Galmudug oo u afduuban dad yiri xoolaan ku leena sidaa darteed gabadha waxaan ku ogaa markaan ka warbixiyo waxaan ku ogaa maamul goboleedka Puntland xaafadda Garsoor ee galbeedka Gaalkacyo gabadhaas agoon bay haysatay agoontaas oo uu dhalay nin injineer ah oo Cabdilqaadir cali jaamac loo oran jiray jilbis ku magac dheeraa waxay u gadisleen jirtay carruurteeda lacag tacsi loogu soo diray halkaas intuu mootanaada Gaalkacyo ay joogtay uu gadisleen jirtay sidaan gabadha halka ugu ogaa waxaan ka war helay oo la ii soo sheegay gabadha in la afduubay oo la geeyay maamulka Galmudug xaafadda Baraxley degmo kamida in la geeyay saldhig bileysoo kamida in la geeyay gabadha waa ila soo hadashay waxay tiri waxaan u afduubnahay xoolo la ii sheegtay oo aan la igu lahayn waa la dhacay bay leedahay dad baa dhacay xoolo kalena waa la ii sheegtay dadna way dhacay sidaa darteed anigu waxaan nin degmada Woodwood ku nool oo oday ah oo xanuunsanaya oo aan Gaalkacyo gaari karin sidaa darteed waxaan codsanayaa oo gabadha aan ka codsanayaa maamulka Galmudug iyo maamulka Puntland iyo hay'adaha samafalka oo beerku iyada waliba markaa xanuuni jiray markii ugu dambeysay beerku xanuuni jiray hadeerna la beerkii baa baray oo laga hayaa in ay si degdeg oo islaamnimo oo Soomaalinimo oo islaamnimo arrinta loo dhaxgalo oo gabadha xorriyadeedii loo soo daayo waa darteed waxaan codsanayaa in gabadha si degdeg anigu nin odayaanahay dhaqanka Soomaaliyeed soo maanta ku dhaqmayo oo raaci maayo qof marka la qabto meel kale ku ordi maayo waxaan ka warsugayaa labada maamul ee gobolka Mudug jooga ee gabadhaas midna ay haystay ee u qafaarantay dadkooda u qafaarantay dad baa u geeyay oo xagga waqooyiga ka qafaalay dadna ay la deganeyd baa waxaan ka codsanayaa in hadii baqadar xaajada si degdeg loo galo oo hadii baqadarkeeda leeyahay gabadha xuquuqdii loo soo celiyo oo islaamnimo wixii ay leedahayna loo raadiyo hadii wax lagu leeyahayna dee la fasaxo waa deyn hadii lagu leeyahay sidaa darteed waxa aan doonayaa oo aan aad mar labaad ku noqonayaa in hadii baqadarkeeda leeyahay gabadhaas waa agoon carruur bay haysataa carruurteedu waa diican tahay waa baqtiday aabahood waa dhintay iyadu beerka xanuunaya waa qofka haweenka labada maamul islaamnimo ahaan iyo Soomaalinimo ahaan waa inay hadii baqay si degdeg wax uga qabtaan marka wixii la iga baahdo waxaan sameeynayaa wixii la iga baahdo wakiil jooga Gaalkacyo oo ama 2 ha noqdo ama 3 ha noqdo wixii macluumaad la iga baaqdo wakiilkaasaan sameeynayaa waa in wakiilka laga xiriiraa wixii labada maamulba ay kala xiriiraan oo gabadha xaajadeeda aniga wixii ugu xirma ay kala xiriiraan waxaan hadalkii ku dhamaynayaa oo aan mar saddexaad ku celinayaa waa in loo naxariistaa gabadha waa in maamulka Galmudug uu naxariistaa waa in Soomaali baynu nahay meel baynu wada joognaa waa wada degannahay daris baynu nahay saas inooma haboona qafaalku inooma haboona lacag aynu soo qabsanay inooma haboona dhaqanka ummadda Soomaaliyeed maaha maamulka Galmudug khaasatan mas'uulkiisa iyo madaxdooda waa inay si degdeg arrinta ay u dhaxgalaan oo arrinta ay wax uga qabtaan maamulka Puntlandna waa inuu arrinta kala xiriiraa yani oo kala xiriiraa Galmudug kala xiriiraa sidaasaan ummadda Soomaaliyeed u ogeysiinayaa cid alla cidii gargaari kartay hawsha wax ka geysan kartay sidaasaan ugu baaqayaa u sheegayaa gabadha beerka xanuuna
haddeer aad iyo aad bay markii saaka ay telefoonka ku hadlaysay aad iyo aad bay hadalku uga soo bixi waayey iyada nafteedii baa khatar ku jirta awlaadeediina khatar bay ku jirta marka in awlaadeedii nafteedaba la badbaadiyo dee shareecada islaamka ina faraysa marka sidaa darteeda intaasaan anigu codsigaan geysanayaa kaa weeye wixii macluumaad ah kale la iga baahan yahayna dee halkaasaan jooga halkaas la iga soo xilay wakiilkayguna wuxuu joogaa Gaalkacyo oo aniga la soo weydiin kara labada maalmood haddii u baahan yahay haddii ay u baahan tahay iyo haddii dibad looga baahan yahay haddii gargaar loo baahan yahayba wakiilkaygu dee anigu un baa ninka Haybe Cali Gure la yiraahdo waa aniga magaciga idin sheegtay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Maryan Axmed Xasan telefishinka caalamiga ee Soomaali Saad magaalada Buuhoodle